dilka xildhibaanad Saade Cali Warsame ayaa dhacay doornimadii maanta waxaana sida la xaqiijiyay xildhibaanada iyo sidoo kale darawal u wada gaari ay saarneed la joogtay labaduba xilli ay ku sii jeeday hotel ay magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ka deganeed dad goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in gaari ay wateen kooxo weesan ay hor dhigteen gaarigii lagu dilay Allah u naxariistay xildhibaanad Saade Cali Warsame waxaana lagu furay rasaas badan taasoo sababtay dhimashada Saade Cali Warsame iyo darawalkii gaariga waday oo la sheegay inuu kamid ahaa مسؤولينتي hotelka ay deganeed Allah u naxariistay xildhibaanad Saade Cali Warsame halka lagu dilay xildhibaanada iyo darawalka gaariga waday ayaa u dhow wadada dheer ee Makal Mukarrama gaaraan xaafadda Taleex iyadoo markii dambe ay halkaasi ay soo gaareen saraakiisha ciidanka ee dawladda Soomaaliya iyo maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska degmada Hodan ee gobolka Banaadir Maxamed Daahir oo kamid ahaa mas'uuliintii halkaasi soo gaaray ayaa ugu dambeyntii saxaafadda uga warbixiyay qaabka uu ku dhacay dilkaasi walaal sida arkaysaanba waxa meesha ku dhintay dad mas'uuliyiin ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun leenahay waxa falkaas u geystay dad alxalaawayaal ah waxa arkaysaan gurmadka ay fidinayaan ciidamada amnigu shaqada booliiskuna waxa way sidaba ka daba tag iyo ka hortag insha Allah ta'ala waxaan ku jirnaa ka daba tagii معلومات بدنا واهينا information بدنا واهينا وانا هلينا دالة waxaan rajaynaynaa si degdeg ah inaan soo qabanno nimanka falkan geystay waxa weeye hawshaas ayada waa ku jirnaa si dhaba looma oga cidda ka dambeysay dilka xildhibaanad Saade Cali Warsame hase yeeshee waxa ay ka mid noqotay tiro xildhibaana oo sanadkan lagu dilay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana hore u jirtay handadaad ay xarakada Al-Shabaab ay u jeediyeen dhammaan baarlamaanka Soomaaliya Allah u naxariistay Saade Cali Warsame ayaa ka mid ahayd fanaaniintii gobolada waabari ee qaranka Soomaaliya waxaana sidoo kale ay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya Cabdinaasir Nuur Socdaal Somsa TV magaalada Muqdisho